السلام عليكم يوتيوب ساتيذين في عنتيذين أحب إنا في عنتيذين مركز تويد ويديا ما عرفت محلها hey ساتيذين في عنتيذين because I really want to know ساتيذين في عنتيذين عارف ما طبتين oh my god ما تودالنا هاي بناك آذي شوبنا آذي وحاكونا ميلها الصور وريقع متصاعوني so جمعنا واي استمرك وحاس لهاي با أكور دونتي اليوتيوب بمانتو حاربة موضوع مهم موضوع عن إنتو حاوي متقنة مركز تو حكا هذا the negative side أو relationship كا بمانتو حاربة إنك هذا the positive side أو relationship كا مركا أذيجي نكاك أسقطان تلا راه بينك وسيو تلا سيتو حواي هرت تلا إنت نقولين با ويجران a lot of Somali people أو سقبان أو إني ملدقينهم فرحسن أو خيستا المفيعا ما شاء الله إلهي دين سياديو يا I know قف كستا محمى با هذا Somali community نحن متقانا dadka idhaha ayaan always adiga kuinay waxa ka hadashaa kaliya maxaa leedahay negative side waxa waaye sababta because positive kadan Soomaalina nagu badan ma sheegno waxba wax kasta inaga agteena wuxuu ka yahay caadi ma aragta qofna inuu meel soo fadhiisto ma aragta dibkiisa kama hadlo qof kasta oo ka hadla ma aragta dibkiisana waan ku caynaa badankana dadku kama hadlaan deep down ma aragta qalbigooga waxa ku jira because qof kasta difaac ku jira ana waxa waaye wuxuu ka cabsanaa lagu caayo ama wuxuu ka cabsanaa break maal in lagu soo ataagireeyo so that's why aniga aan uga hadlaa ma aragta waxyaalaha aysan dadka badankooga aysan ka hadlin inkastoo hadda ay jiraan dad oo ka hadlaya ba still ma aragta qof oo ma aragta 100% taabanaya like queen qawan das ma jirto maanta mogtahay that's why uga hadlaa so anyway waxaa arkay dad family isqaba marka gabar markaa sheekaysanay maxaan su'aal isweydiinay gabar ma arkin aqoon ma lihi ba waxa waaye dadka social media iska baragnay waaye marka gabadhii waxay u dhaxday abaayoy ninkaygu wuxuu isku dayaa inuu amro inuu i controlo waxaa dhahay what do you mean control amar waxay dhahday wax kasta wuxuu rabaa inaa u sheego وحدا ولا joog u kaadibal taasayto control maahaneen that's not control macanto because qofka markaa wada degantiina horta markaa qof guursanaysa ma aragtaa rule number 1 communication waa muhiim Soomaali haddaan nahanina mataqaanaa tilome aniga xataa ku qaaban ma aragtaa communicationka kuma fiicnin big I don't know why but communication haddii laba qof oo Soomaali is hor fadhiistaan inay wada qoslaan oo ayagoo wada qoslayaan hadalkaas ay dhameystaan waxay dhacdaa 1% ay dhacdaa inta kale ma dhacdo I don't know why ha i weydiinin so sababta aniga hay weydiinin ma ogi Soomaalida dhan iska saa u malaynaya communicationka inagu aad baa hadda Soomaalina mataqaanaa iskula dhibanahay marka qof marka aroosaysid qof marka guursanaysid waxa u guursanaysaa noloshaada dhan inuu kula qaybsado waxa u guursanaysaa qofkaanito inuu adduunka inta adiga ku nooshahay adduunka intuu asiga ku nool yahay family wadan reer wada dhaqataan oo meel wada degtaan sax so qofka hadii ama aragta best friend-kaaga ka dhiganaynin uusan saaxiibkaaga uusan noqonaynin oo waxaan ku dhahay literally wax kasta aan u sheegaynin maxaa waaye muhiimada guurku aniga uma malaynay faa'iideyna leedahay haddii saas tahay gurka dusaas agtiina ka yahay ba muhiimada ugu weyn waxaa waaye communication ku soo sheegay so marka hadda si kala qaaqadno communicationka waxaa waaye qofka inaad waxa yariiska isku fahantaan because qofka bini aadanka hadda waxa yariiska isku fahantaan wax weyn oo isku fahmaysiin ba qofka hadaydan waxa yariiska isku fahmin wax weyn isku fahmaysiin waxa imaanaysa in difaac galo waxa imaanaysa in adigu difaac ku jirto waxa imaanaysa hadal kasto uu ku dhahaa ina u maleesid negative inay tahay waxa imaanaysa hadal kasto adiga aad dhaxdaa inuu negative noqdo sababtoo ah inuu negative ka wado sababtoo ah waxa waa isma fahmaysiin adiga isagu because communication la'aan ba meeshii taala maadaama communication la'aan meeshii taalana halka mare hadasho afkaagu ilaashana adna halka mare hadasho afkiisa ilaashana so seeta hadda ugu gudbi kartaa hadii taas ku haysato for example taas hadii ku haysato hadda maanta waxa adduunku horumaray waxa la joogaa wadamo casri ah la joogaa waxa aadaysa couple therapy
I know a lot of Somali people are dhahayan anaga therapy uma aadna anaga therapy san maahan hadaa Soomaaliya joogtana mataqaanaa isku day inaa adiga iyo ninkaagu dib isku shukaansataan oo dib isku barataan oo waqtigii idin dhaafay aad dib usoo ceshataan waa hadaa rabtaan inay wada joogtaan haddii kalena ma aragta saas unba dagaal ugu jiraysin iyo rafaad waan isqabnaana waa dhehaysid guriga marka la joogo bisad toban jeer camal la isku yahay banaanka marka la joogana Titanic just because dadka la rabaa in laga raacin in la isku fiican yahay بمهم وحكوا عاداتكم مهم كمان because ninkan adaa la degan dadka lama degan moogtahay so aan waxa ku dhiilaa isku day always communication kin inaa ka shaqaysiin because aad bay muhiim u tahay so marka usoo gudub haddii for example gaari gadanaysid ama wax gadanaysid oo ninkaaga weydiiso dhahdaa babe waxaan rabaa inaan gatee say kula tahay macnaheedu maahan inuu ku amraayo nope no amarku waxa waayo qofka ku dhahay ha bixin qofka waxaan ku dhahay lacagta ku qiyaasaya qofka oo waxaan ku dhahay telefoonkaaga fiirinaya qofka oo waxaan ku dhahay inta saacadood maqan tahay fiirinaya that's a control ba qof ina waxa soo gadatay aad tusisid ama aad u sheegtid ama aad la tashatid macnaheedu maahan inuu ku controlaya hatta hadaa meeltiisa ku dhahdaa hey babe waa baxaya waxaan aadaya hablaayo وكلها قرمة صون قلت إحلى كاسة صون قنية that's not control just because مدام ونينكاجي هاي وجورجاج تشوجو وكاول والسيء because وقف بين هذا وكاول ولا وحربة كلية إنه أجادو ماشى أتكون مقنت هاي إيو هلك أكبر دكس وعادي وحثيت لو بقف مكر ليش شو بيستان so controlكو ما هندس تاسيتو وحاواي I don't know دتك سومالي ذا بدنك nimankana kalsoon la'aan baa haysa naagana kalsoon la'aan baa haysa because anigu waa ku sheegada koor gabdhaha Soomaaliyeed waska oo masaakiin waana doqmo because miskiinimada fara badan waa doqoniyo moogtahay ana hadda igu soo yaacinaya sorry so iyadoo maadaama ay guriga ku joogto ay waxaan ku dhac cuntadii karinaysa ay wax kasta ku qabanayso ay xakan ku qabanayso ay kale ku qabanayso marka ka dhaqayso marka kelmad dhaxda ayadoo daala maanta dhan had kelmad dhaxda of course qofku waxa xanaaqa moogtahay but at the same time waa ina qofka bini'aadamka la nooshahay ee kula nool dabeecadiisa aad baratid waa inaad naagtaada dabeecadeeda aad baratid waa inaad ogaatid waxay ka xanaaqayso waa inaad ogaatid markay dhiiga leedahay waa inaad ogaatid markuu maxaan dhahdaa ay daalan tahay adigu sidoo kale ninkaaga waa inaad og tahay markuu daalan yahay markuusan daalanayn waxaa arkay video naago social media maxaan dhahaa TikTok dhahaysa ninku haddii uu shaqo ka imaado uu ku dhahaa waan daalanahay yacni kuuma raaxayn karo xagga sariirta ha ka yeelin I was like what haka yeelin waxaa dhahdaa wariya soo boobod inta ku boodo waxay dhahday hoosta u dago yaa ugu heesas meelaha inta joogto ma aragtaa inaan waxa ku sameeysid ha ku dhawo ikufsato hal ugu xiro because kufsigu isna laakiin inuu ka kaliya tatay meeshan inay naga kaliya tatay moogtay nin waa ku san kartaa mugdo tan kale haddii uu shaqo ka imaade aad og tahay ninkaagu inuu soo shaqeeyay aad og tahay inuu daalan yahay waay aad kugu qasbaysaa inaad baxdid maalinta dambe haddii aanad haysanin ma aragtaa waxyaalaha la isticmaalo dildooyinka xabad inaad iska soo gadatid ama vibration iska isticmaal because noloshaan say u dhan tahay mataqaanaa it's not like in Farax iyo Xaliima isgalaan maahan oo waxaan ku dhahay hooda la isku hayo habeenii maalin no qofku daalan yahay qofka depression ku dhici kara qofka stress baxaya naagaan ku dhahay ma aragtaa ninku markuu ku dhahaa ka yeelin waa ina ku dulbooday waa ina ku dulbooday ilaa baan kugu dhaariya ma adoo naaga oo naag weyna oo timihii hoose iyo timihii saraba kugu soo bixin badnin siilkaaga la baryaysa ama ha ku qabayo ama yuusan ku qabine adheesa macaanow kaalay waa kanito taabo kaalay sidan dhe kaalay sidii kale dhe waa markuu dareenkuba inuu ka tago mar dambe uu ku fiirin waayo because qof bini aadanku isku wada dabeecad adiga laftarkaagu ma jecel qofka ku dhegdhega adiga laftarkaagu haddii uu ninkaagu uu laba mar gacanta ku saaro adigoon rabin adiga dhan wasgalaysaa because macnaheedu waxa waaye ma rabtid so
ma rabtid so asigana sidoo kale waay asigana sidoo kale waay so markuu ku dhahaa ma aragtaa waa daalanahay leave him alone ayada markii ku dhahda waa daalanahay leave her alone because maaha wax galmadu qasab maahan banaadaha oo talada ka dhageysanaysiin ee madaxna in xijaab ku soo xirtaan ma aragtaa labada naasna u qaawan yihiin hadda dadkaasi ana ay dhahdeen kuwin qaawana wax ka dhageysanaysiin because marka ana waxa marka hadda koor marka idin dhahay ma aragtay marka kuwin qaawan aragtaan bas bad ilaahay diinta soo xasuusataan markay naagu inay soo xijaabtaan ay labada naas markay naagu inay soo xijaabtaan ay labada naasna soo baneeyaan ma ilaahay ma xasuusatiin waqti just marka kuwin qaawan aragtiin ba diinta xasuusatiin inta kale diinta ma xasuusatiin marka dadka ana hadda ka horna waa ku sheegay haddana waa kugu celinaa dadka aad talada ka qaadanayso waa inaa fiirisaa maxay qabsadeen maxay yihiin halkay joogaan muhiim waaye naa ku dhehaysa ninkaagu markuu shaqada ka imaado waa inaad isku qasabtaay taasna talo naag iyo ninkeedii inay soo hor fadhiisteen sida isku wasaan ka sheekaynaya آخر الزمان أنا قلت ذاك الشيء كي number 1 single بان هاي number 2 always I'm alone here وفي ماك شو بنيجي كساوسة إنها سو أكفر يسطو يا إنها سو أكفر يسطو سدو قوة وكشيء كي أسيقنا ناقها كم كسوق ردنا كعايو الله يسكبرك anyway سوكو حسبين كذا فكرة فربنا ما أركان مكتئب waxaa arkay too kaloo dhehaysa ninka intiidaanan adiga ninku isku tegin saliid basha kala marsadaa too kaloo dhehaysa arkay barafuuna marsane unsiya isku shide qofka bini'aadankii uu ku shuminaa qoortaadu shuminaa naasaha ugu shuminaa ninka ma samayn rabtaa walaali midili rabtaa maxaa ka wadaa ma samayn rabtaa midili rabtaa saliid marka jirka marsani naa saliid wax saliid bariyaan ma arkin hoosta waxa la mariyaa wax luub la dhaho waxaasaytan waxa waaye siilkaagu haduusan qoyaan lahayn bay qoyinaysaa anaa ku tusinaya kaas ba soo gadanaysaa infaantay ka markaa soo gadato sometimes for example haddii sometimes you're not feeling markaana wax I don't know iska dhacda adiga waxna feel garaynayn haddana rabtaa in mugtaay markaas camal dry tahay ama marka cabaar ba hawsh socoto dry noqonay mugtaay so lubkaas marsanay walaalay saliid maahan saliid laba marso saliid intaad marsato dirxisiilka ka galo allah dirxisiilka ka galo anyway sheekada ku soo laabo haddii arabto gurkaaga inuu ku hagaago haddii arabto reerkaaga inay ku hagaagto mataqaanaa always isku day communication kaaga inaa ka shaqaysid muhiim waaye communication muhiim waaye furaha guurka communication waaye haddaa rabto adigii faaraxaagu ina isla duqowdaan ya oo aad isku dulgaboodaan waa inaa communicationkiina aa ka shaqaysaan labadiinaba haddii ay dhibaatadu intaas ka badan tahayna waa inaa therapy aadaan social media haanayto dadkan jooga warkiisa iska dhaaf ma fahantay أنا هذا قارة كل شيء أنا مركي جدا كم قصب مكتشف وكل شيء قعدت أنا وقاعدة حتى أنا ضربنا ما ركتها ما قاعدة يصير up to you because مقاحدة محلها إيدي جيسو أما هيدي جثنين با من كل شيء وكودا مع a lot of people ما فهمتي because أنا قال يا أهل مكتاي رنتا كل شيء وحان قبان كل شيء وحان قبو أن كل شيء ما فهمتي حبدا سؤال لما سؤاله كان لو قدام بينا باشا قدام بيسينا بريال اللي صدر ناك كلا إلى هذا هالي دحايو قهوة وحن كورا قهوة وحن كورا باي معانا ميدا كل شيء دad كانيتو وحي كاقا دايرون كوما شيء يعني ما فهمتي
wax oo ma aragtay dhexdaada kaliya ama calooshaada kaliya ta caataynayay ma jiro. waa been ama waa wada caatoobe ama waa wada cayile. cuntada aad cuntaa jirkaaga calooshaada jirkaaga u qaybinaysaa uma kala eexanayso ma dhahayso haa heblaay waxay rabtaa inay caloosha ka caatooda caloosha ka weeci maxaan dhaa waxaad u geysaa dabada ma jirtaa baayo. been waaye. haddaa jiim aadana jirkaagu siduu noqon doono waxay ku xiran tahay sida ay faamilkaaga ama hooyada ay tahay ama aad adiga tahay ma fahantay. isna laakiin qof kasta qof kale u ekaanaya haddaa jiim aado nope sidaa tahay lagugu talagalay ma aragtaa unba ahaanaysaa. jirkaagu hadduu dhismo xataa oo masal kasta aad samaysato oo muruq kasta aad dhisato waxaa laga yaabaa inaad stil ku farxin oo sidaad rabtay aanad noqonin because qof kastaa siduu yahay waa sida faamilkiisa u yahay because jirkaaneetu waa lakala dhexladaa. badanka habluhu hooyooyinkood bay u egyihiin aabayaashood bay u egyihiin so faamilkiinu say yihiin unbaa noqonaysaa. qof kasta ood aragtan ma aragtaa faamilkiisu say yihiin unbu yahay mogtahay. saas waaye. tan kalena caagadaa la qaadaa gacanaa laga caatooba jirka inta kale waa laga okay noqonaa been waaye taasi tana. xataa ma aragta westernada oo aad arkaysa naagahani tixran yihiin waxba ma taraan. ask me waxa ma taraan. naag kale waxaan arkaya inay arno boorash iyo wax isku qastay matag iyo arno wuxuu haaba ba wax oo jaalaha inay isku qastay dhehaysa futada ay weyneynaysaa. naax ma ku sheega xaliimoy cuntadaada yar guriga ku karsanayso ku alxamdulillah so haddii kala lagu sameeyo sumow aku dhahay because naagahan ay tamarta waxaan gadayaan kuguma naxariisanayaan. naxariis kuguma jirto. naag kale ayaguna jirto tiktok ku arkayo wax isku qaqasaya naya yiri naya yahoy dhagay far naajog oo iska day waxaanaas marmarinayso naajog joog anu waa kuu sheega cunto fiican cunaa ku dhahay seexaa ku dhahay MSM qaadaa ku dhahay video kasoo samayn doonaa collagen qaadaa ku dhahay naajog oo iska daabalaayoyinka laisku dardaray isku cadaynaysid wuxuu jirku kula dadilacsan yahay oo jirku kula googaay eed la hoogtay eed la baabaaday waxaas waaye. anyway videoyaasheeda ma jeclin dhowr 10 daqiiqa dhaafan. so follow me on TikTok though queen qaawan waaye. Instagram kana soo kale soo follow garee queen qaawan waaye. Snapchat kayguna millionaire girl waaye. soo follow garee xasnimada iska dhaa videoyaasheeda like garee subscribe saar. waa idin sheega week kasta waxaa soo gelina 2 video. next week waxaan isku dayaa vlog inay idiin soo geliyo a little bit ma aragtaa oo nolol maalmeedkayga maalintii waxaa qabta markaa hurdo ka soo kaco because aniga ama business woman moogta subaxii markaa soo kaca guriga ka shaqeeya. isna laakiin aan guriga ma masaxay waxaan ito no babe guriga ma masaxa adiga no waxaas maahan. but I have my own business because I'm an OnlyFans girl. so badanka haddaan shaqaynayn on free ahay waa raaxaystaa. so waxaa rabaa inaan maalin idin wado oo nolosheeda idin tusiyo. but I have a problem though. banaanka inaan istaago si kasta sawir waa iskaga qaadi karaa boolaale video ma duubi kari. I don't know waa inaan ka shaqeeyo waaye taasito oo waxaan ku dhahay anigii kamarada maanta dhan soo haya ma aragtay waa inaan taasito ka shaqeeya. I don't know ma anxiety waa haystaa ma ogi sababta ma ogi but I will try. so anyway thank you. subscription fara badanaa helay. I see you in a video fiirsanaysiin. but anyway thank you Mariole qayb badan ay dirasheynaya.